magaalada Boorame ee caasimada u ah gobolka Awdal waxa saaka si weyn looga xusay maalinta Ciidul Adha oo si isku mid ah guud ahaan caalamka Islaamka looga xusay kumanaan kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boorame ayaa xilli hore saaka isku soo diyaariyay si ay uga qayb galaan oogida salaada Ciidul Adha iyagoona u socda kooxo ay soo qaadeen jidadka kala duwan iyagoona ku soo biyo shubanaya barxadaha iyo sidoo kale goobaha masaajidda loogu talagalay in lagu ooga salaadaasi halkan waa masjidka weyn masjid jaamic ku yaala faras magaalada Boorame waxa salaada ciidda dadweynaha kala duwan ee halkan ay ku tukanayeen kala soo qayb galay oo salaada halkan ay kula oogay wasiirka wasaaradda horumarinta ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland Maxamuud Xasan Saacad Saajin meeyarka magaalada Boorame Salebaan Xasan Xadi barasaafka gobolka Awdal mudane Maxamed Axmed Caalin Tiimbaro waxana bulshada kala duwan ee halkan ay ku tukanayeen ay la wadaageen fariinta ku saabsan munaasabada ciidda yahay haduu bilic magaalo yahay haduu waxtar kale oo wanaagsan yahay haduu yahay hadal kale oo islaaxa oo nabadeed oo ummadda islaamka dhexdeeda wanaag ka dhalinaya in la iska aqbalo oo la isdageysto oo la iskhilaafin ulul amriga iyo cid kasta oo wanaag idin sheegaysa in sideeda loo dhageysto oo aanay noqonin muddo ku taag مسكين جامعة أكتيس واد وجيدينه وضد الصدى هاي iyo karkada iyo dhagax iyo dhibaatada yaala kulay golaha deegaanku maanta horumar wanaagsan ayuu ka qabtay runtii waanan sii wadaynaa inta noo hadhay haduu Ilaahay dhaahdo idinkana waxa idinka sugaynaa wax kasta oo wanaagsan oo aan ku dhaqaaqno ama awaamiir ka soo baxday in sideeda loo fuliyo haduu Ilaahay dardaarkaygu waxa weeye anigu gobolka waan ku cusbahay si laakiin wixii aan ku arkay inaynu wax ka qabanno oo nagu garab gashaan baan doonaynaa xashiishkii magaalada waynu ka saaray waxa magaalada intaan joogay aan ku arkay bahashii wixii muqaadaraadka loo dhan jiray aad inoogu soo kordhay waxaan idinka rajaynayaa muqaadaraadka haddaynan la dagaalamin ubadkeena oo dhan buu fasaadinaya waxaan idin weydiisanayaa annagu xukuumad ahaan inta aan awoodi karo bahalka dagaal baan ku qaadaynaa inaan nagu garab gashaan inaad soo sheegtaan meel wal oo dhufayso oo galaba anigu intaas aan ka codsanayaa horumarka uu baynu ka wada shaqaynaynaa waxaan kale hadala socdaa wax naga khuseeya ma jiraan inaga danteenu baan leeyahay Ilaahay oo na garansi waxa weeyaan gobolka Awdal inkastoo oo xoogaa moogtahay ariga la isku haystay oo yahay moogta dhul oo dhibaatooyin badan ay ka jiraan haddana alxamdulillah rabbil caalamiin nabadgelyada aqoonsan nabadgelyada waa mustaaxa nolosha horumarka laakiin dadka qaarkiina fahmin baa laga yaabaa waxaa fahmaya nabadgelyada dadka ay dhibaato haysan nabadgelya ku dhaca waxaan rajaynayaa sida ku socoto halka ay Djibouti markay isku xiranto halka ay Hargeysa isku xiranto isbedel weyn baa dhici doona taasina horumar bay keeni doontaa laakiin nabadgelyada muftax hadii nabadgelyo la waayo waxa soo ku dhalma shaqeynay la dariiq ma imanaya wala xaga imanaysa marka Ilaahay sanadeeda haynu gaarsiyo barwaaqo iyo bashbash iyo nabadgelyo iyo caafimaad Ilaahayna hayna garab mariyo xanuunadani moogtahay caalamkii qalabka way galiyay gobolka gobolada galbeedka Soomaaliland Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ali Jawhar isagoona isul taagay arima dhowra nooma ay muuqanin xagga nabadgelyada nooma ay muuqanin wax taleeyay gudoomiye gobol oo diin ah oo danaynaya shacbiga dantiisa iyo ummadiisa danaynaya foodxumaduna ay kibayso ayaanu dareemayay maanta waxa halka gudoomiyaha gobolku ka sheegay inuu ku garab galayo oo ku gudanayo horumarka degmada oo ku gacan siinayo maayarka iyo guddidiisa nabadgelyada la dagaalanka muqaadaraadka marka waxaan leeyahay qoladii amar bil macruuf ka ahayd aynaguna boorka waan ka jafaynaa oo runtii waxay tirsanayeen in deg loo yeelan waayay bay tirsanayeen waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishinka caalamiga Ariel TV Boorame.